Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada kasoo jeeda koonfur galbeed waa anigoo ah Haashim Mustafa Aadan kuna hadlaya magaca aqoon-yahanada Soomaaliyeed khaasatan kuwooda ku nool dalka Talyaaniga. Maanta halkaan waxaan usoo fariistay in aan ka hadlo xaaladda guud dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha kasoo kordhay koonfur galbeed. Sidaad ogtihiin walaalayaal, maalmihii tagay waxaa ka jiray koonfur galbeed arrimo siyaasadeed taasoo markaa sababtay in uu markaa meesha ka baxo maamulka hore uga jiray sabab walba ay ku timaado. maantadan waxaa meesha ka jira maxaan ku rahdaa maamul kumeel gaar ah oo ay u samaysay dowladda federaalka Soomaaliya. ma rabo in aan ka hadlo arrin markaasi taabanaysa dareenka dadka, laakiin waxaa rabaa marka ugu horeyso inaan u mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo fududeeyay wax walba meeshaasi ka dhacay ayadoo markaasi laga fogaaday dhibaato walba oo imaan kartay. si walba ay ku dhacdo, si walba ay ahaataba, maantaas waxaa iska leh Ilaah baa iska leh oo markaa meeshaasi dagaalkii laga maleynayay dhibaatadii dadka qaar ay rajeynayeen halkaas ka dhacdo aysan ka dhicin. intii ka shaqeysay iyo intii waqtigooda u hortayna waa ku mahadsan yihiin. mahadnaq iyo bogaadin kadib waxaan rabaa marka inaan taabto arrin quseeya maamul dhisitaanka hadda la rabo in meeshaasi laga yegleelo. dabcan saad ogtihiin walaalayaal, xaaladii waddankaasi uu ku sugnaa khaasatan koonfur galbeed waxay ahayd mid looga cabanayay xaqdaro, maamulka meesha ka jirana ku dhisnaa xaqdaro. hadda marka waxaan rabaa inaan isxasuusino maamulka la doonayo in la dhiso in laga fogaado wax walba oo keeni kara tafaraaruq bulshada dhexdeeda ah. wixii dhacay waa dhaceen, maamulkaasi waa tagay. in aanan loo qaban maamulkii tagay qolo ama maxaan ku rahdaa reer gaar ah, inaanan eedii iyo gobodfalkii halkaasi ka dhacay inaan loo saarin, laakiin uu ahaa maamul dadkoo dhan iska wada arkayeen, hase ahaatee loo kala badnaa. ciddii qalad gashay in lagula xisaabtamo qof walba wuu doonayaa ayadoo loo marayo sifadii sharciga ahayd. ma aan macneeyo inaan difaacayo maamulkii hore, laakiin waxaan rabaa waxaa imaanaya inay ku yimaadaan wada ogol, rabitaan, in la iscafiyena waa udub dhaxaadka nolosha bilowgeeda. haddii ay nabadi jirto wax walba waa la samaysan karaa oo waxaalan shaqadii ay la helayaa, waxbarashadii ay imaanaysa, horumarkii gobolkaas ama goboladaas dadka ku nool Soomaaliya inteeda kale way ka dambeeyaan, dhan walba way kaga dambeeyaan. waxay ahaato wixii la soo maray inay noqoto darsi markaasi u gogol xaaraya dadku inay markaasi ay markaa ku taamaan amaba ay ku dadaalaan sidii ay u samaysan lahaayeen maamul boqolkiiba 98 aniga boqolkiiba 100 ma noqon karto. dabcan adduunyadu mar walba khilaaf oo iska imaanaya, laakiin boqolkiiba 98 ay noqdaan mid bulshadaasi ay ku qanacsan tahay. dabcan beelo badan ayaa meesha degan, waxaana filayaa amaba u malaynayaa amaba ay tahaba maamulka keliya ee Soomaaliya oo dhan ay iska dhex arkaysa ha loo kala bato oo qoomiyadda labadan qoomiyadood. dabcan aniga sidaa hadaan aaminsanahay Digli Mirifle waa laba qoomiyadood, inkastoo la isdul saaray xuquuqdaas meesha ku maqan ayadan waqtigeeda leedahay. waxaan rabaa marka ayagana dadka kale oo deegaanka ah ee markaasi loo arko inay yihiin in looga badan yahay ayagana xuquuqdoodii inaan la dafirin. dadka ayaga ah oo meeshaasi jooga ayagana ama qabaa'ilada kale ee Soomaaliyeed ayagana mataqaana deegaanka ah in aysan markaasi uga faa'iideysanin waxa maanta meesha ka socda inay yihiin mid ayaga lagu dulminayo, laakiin ayagana walaalahooda ay wax la qaybsadaan wixii ay noqoto wax la isla leeyahay oo qofba qofka kale uusan u arkin wax la sameeyay in asaga lagu duursiinayo. haddaan usoo daadego marka maamul samaynta, dabcan waa la wada hadlayaa, qolo walba sibay u hadlaysaa. fakirkayga marka wuxuu yahay bulshadii inay isu timaado sida hadda la sameynayo, laakiin waxaad moodaa mararka qaar dadka hadda meesha isugu yimid inay yihiin ujeedo badan oo markii hore laga midaysnaa in meeshaasi laga saaro maamulkii meesha ka jiray, laakiin maanta runta ayaa la taagan yahay oo qolo walba waxa ay damacsan tahay inkastoo aysan soo bandhigin haddana dhaqdhaqaaqeeda laga dareemayaa. marka waxaan u rajaynayaa dadka halka meeshaasi jooga ee mas-uuliyiinta ah ee danaynaya markaasi inay markaa u tartamaan madaxtinimada meeshaasi markaa la rabo in lagu dhiso inay ku fakeraan
waxa ay sameyn doonaan inay mar walbaba ay tahay midda ay bulshadooda ku soo jiidan karaan amaba ay kaga fogaan karaan inay ka fogaadaan wax walba oo dhibaato u keeni kara dadka meeshaasi degan ayadoo markaa laga jaan qaadayo tusaalena loo soo qaadanayo maamulkii ka horeeyay wadadii uu maray in aan la marin dabcan waxa shal laga qeynaa waa xaqdar inaan lagu soo noqonin Soomaalida meesha wada degan waa dad walaalaha Soomaalidu ma kala maaranto qabyaalada in laga fogaado Soomaaliya waxa wax ku qaybsatay qabiil ay wax ku qaybsatay inkastoo aysan fiicneen laakiin haddana saas ayadoo ay tahay in la raadsho wadada ugu macquulsan ee wax lagu wada yeelan karo waxna lagu qaybsan karo ayadoo loo maray sifada saxda ah waxaad moodaa marka laga hadla digil marifla qaasatan waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo qoomiyadda digil waxaad moodaa in ay jiifto macnaha daliishaan siinaya ma ahan inay maanta qori qaataan oo ay dad laayaan laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad codkaaga dhiibato oo aad tagto meesha maanta hadda lagu kulansan yahay oo aad ka dhex muuqato oo aad codkiina dhiibataan aab idinkuma ahan xaqdarana ma ahan macnaheeduna ma ahan inaad dad macniyan xuquuqdooda aad qaadanaysaan laakiin haddaad ka aamustaan shalay waa aamusnayd maantana waa aamusaya oo waxaagu ay noqoto wax markaa idinku isu sheega oo keliya amaba laba qofood oo sheekaysanaya haddaad ka dhigtaan hadda waxay Soomaali waxay tiraahdaa nin seexday si ciise dibidhal haddaad maanta ka seexato xaqa adiga aad leedahay goormee helaysaa marka weliga ma dulmana ahaanaysaa waa maya waxaa loo baahayaa marka ayadoo la isku duubaya oo digil isku duubaya qabaa'ilada digil toddobaad digil la yiraahdaa in la isu yimaado salaadiintooda macnaa cuqaashooda waxgaradkooda maxaan ku raadhaa dhaliiradooda inay isu yimaadaan siyaasiyiintooda in markaasi mowqif midaysan ay qaataan oo meeshii ay la tagaan waxbaa la kala qaybsanayaa maanta haddaadan adiga aadan u doodin xuquuqdaada yaa kugu doodaan maalin walba waxaad taagnaanaysaa waa lay dhacay xuquuqdeeda la dulsiiyey meeshaasi waxba kama ihi maaha xaqa adaa iska leh xaqaaga haddaadan u doodin cid kugu doodaysaa yaraatee ma jirto maanta fursadaad haysataan fursadaas maanta aad haysataan inaad dayacdaan maaha macnaheedu ma aha inaad qori qaadataan dad laysaan maya muhiimaddu waxay tahay gogashaasi meesha taa inaad dhex tagtaan hadda ilaa tirtaan ma aragno qof tegay waa jirtaa oo isaga shakhsiyadiisa u socda amaba mataqaana qabiil maxaan ku raadaaye koox ka mid ah oo weliba ayaga laftirkooda aan isku raacsaneen waa aragnaayo siyaasadda hadda Soomaaliya qaasatan saaxada siyaasadda koonfur galbeed waxa ka socda waxaan u nahay mataqaana shaahidaan u nahay marqaatiyaan ka nahay adduunka hadda la joogo meel walbo aad kaga nooshahay waa la soo yareeyo social media samtaqaana dadkii oo dhan kulmiyay marka baraarujintaas iyo maxaan ku raadaa tala soo jeedintaas aan u diray maxaan ku raaddaa beesha qoomiyadda awdigil waxaan rajaynayaa hadday soo gaarto in ay mataqaanaaye dabcan ayadana siday tahay u qaadan doonaan laga yaabee dad kale oo aniga ila mid ah oo xuquuqdooda u doodaya inay jiraan ka hadleen kana hadlayaan hadalkayga dadkaas ayuu xoojinayaa horey uga hadlay marka laga hadlayo gobolka Shabeellaha Hoose waxaad moodaa gobolka Shabeellaha Hoose sanadihii burburkii wixii ka dambeeyay inuu noqdo cambuulo carab saaran qolo walba ay noqotay ku daaro waa loo kala badan yahay waa la kala leeyahay waa la wada degan yahay in la wada dego oo la wada ceesho wax la wada cuno Soomaalinimo lagu wada joogo way tahay waana wax loo baahayaa wadankaas waxa lagu yaqaan soo dhaweyn laakiin dadka markaasi shalay deegaanka ahaa dadka soo dhaweeyay waxaad moodaa waayadan dambe waxaan ka hadlaa wali waa qoomiyadda digil waxaan ka hadlayaa waa qoomiyadda digil waxaan la hadlayaa waa mataqaana siyaasiyiintooda waxaan la hadlayaa cuqaashooda waxaan la hadlayaa waxgaradkooda waxaan la hadlayaa waxay tahay maxaan ku raaddaa ganacsatadooda yani waxaa loo baahan yahay siyaasadda maanta meesha ka jirta inaad wax la qaybsataan dadkiina wax la qaybsataan miriflaana cunay miriflaa wax naga boobaa meeshaysan noqonin waxaa loo baahan yahay in wax la isla qaybsado la hadlo maanta markaad hadasho ayuu qofka dareemayaa ilaa ixad waxa araadinayso waxa ay yihiin laga yaabo qofkaasi ama ha ugu talagalo ama ha ka hoos baxdo laakiin mar haddaad hadasho qofna xuquuqda mataqaanaa kuma duulsiin karto waxaan rajaynayaa haddii codkayga idin soo gaaro kulley wuxuu ka mid yahay ama ka mid noqonayaa soo jeedintii marar badan ay soo jeedeen dadka qaar amaba qoomiyadda ha u dhasheen amaba qoomiyadaha kale ka soo jeedeen ee markaa u danqanayay xuquuqda ka maqan awdigil beesha amaba waxaan qoomiyadda marafin ayadana waxaan leeyahay
walaalayaal waa idin arkaa dadaalkiina heerka uu soo gaaray yuusan noqonin hal bacaad lagu lisay idinkana inaad isku noqotaan 9 u kala baxdaan waxaan u maleynayaa waqtigeedii in laga soo gudbay waxaan rabaa walaaltinimadii shalay aad halganka u wada gasheen inaad uga faa'iideysataan siday tahana wax u qaybsataan xuquuq kale qofna qofka xuquuqdiisa inuusan yani duusin amaba uusan ku fakerin qofka xuquuqdiisa inuu qaato sababta ay tahay maamulkii jiray sababta meesha looga saaray maxay tahay cadaalad darra laga tabanayo cadaalad darradaas laga tabanayay maanta haddaad adigii aad samayso cadaalad darradaas waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog marka yaana hadalkan ku fogaanin waa idinkaga mahadinayaa sida xushmada iyo karaamada leh aad mataqaanaa mar walba aad ugu taxantihiin maxaan ku rahdaa hadal soo jeedintayda iyo marka aan ka hadlayo khudbadaha ku salaysan siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan inkastoo saaxada siyaasadda weli aanan ahayn nin sidii la rabay uga soo dhex muuqda laakiin haddana danqashan dareemaya oo mar walba social media waxaan ka arkaynaa dhibaatooyinka ka dhacaya dabcan hadda wadankii waxaa ka jira abaaraha ka jira wadanka goobaha ugu saameynta badan waa inta ay mataqaanaa labadan qowmiyadood ay degaan maxaa keenay waa maamul xumo keentay maamul hadduu jiri lahaa oo macniyan mas'uuliyad iska saara dadka meeshaasi ku nool deegaanka meeshaasi hadduu mas'uuliyad iska saaro yani si walba ay saameyn u dhacdo oo ay u dhacdo maxaan ku rahdaa abaar u dhacdo haddana abaabulaa jiri lahaa waxbaa la abaabuli lahaa dadkii mataqaanaa biilaan haysan mararka qaar hadda waxyaabaha aadka uga danqanaa waxay tahay ayadoo abaar jirto biilaan jirto ayaa haddana magaaladii Baydhabo waxaa ka arkaysa iyadoo xaflado lagu qabanayo hantidaas badan ee la bixinayo way fiicneed in dhankaasi gargaarka loo weeciyo laakiin waa dareemaya saaxada siyaasadda badan oo raba inay soo fuulaan ayaa ku jira ayagana fursad ay u arkaan laakiin waxaan u maleynayaa wixii hadda ka dambeeyo inay ku baraarigi doonaan marka halkaas uga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.